maanta afkiisa heer waxay soo qabatay oo igu dhaho uurka ay leedahay nin kale u leedahay kawa soo tag weligay alqalad kuma dhin whatsapp fiiri qof bilaash wax xun oo tiktok ka socdo oo wadar iyo waaxid yaa waalan waaye war ninkii xasan yare iyo ninkii xinif yare balow ku hubsaday inna man fiiri. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب بيال هلكا إنك داوني سنوا يوتيوب جنال كينا أسجاني شاكدة تيك توك ما أنت أفر لواتك ساعة اللي صورنا في محل لقى هذا الهيا آلة تيك توك أيضا مقال كان كدا وتان مالين كست صاحب بيال بس مركون أنت أنا كوفة صحيح مقالة ذا كانت دوين يا أفر لواتك ساعة اللي صورنا في تيك توك ساعة وقلقلي وحكا عصنا على يوتيوب كسبسكرايب صارتو مقال كان لايك صار سيو صاحب أفر بدين وقارو بليان إذا كده حقلني إلى داود المقالة ودر iyo واحد يا waalan waaye war ninkii xasan yare iyo ninkii xinif yare balow ku hubsaday inna man fiiri dadka waxay leeyihiin war aniga baloog Soomaali xun ay saarto wax iga bedeli maayo hal qof iyo dadka dhan yaa waalan marmarka qaar dadka dhan waa la karaan hal qof fiicnaa karo cidda baloog in qofka la saaro waxay ka durtumaysaa waxa waaye waa qofkaas qof ka baqa waa maanta qays markaan baloog ku saaro itmiinus waxa waa ka cabsada okay meega ragaabo iska dhax suucabe warniyow aniga naaga 3 sano shukaansanay oo lacagta mootada iyo cunaysa baloogi saarta mana banaan baxoy nin leeyo baloog idin saaree buuqan iyo qeylada maxay tahay teeda kale Abdullahi Kashka munaafiq waay Abdullahi Kashka iyo dayax waliyo saaxiibo ma noqonin ee Kashka la xariiftami jiray aniga hadda maalin walba ninka waacaya weligii baloog ma saarin never in my entire life marka dadka munaafiqiinta ama aaminsanahay luqiyada dadka ka xanta inuu baloogta saaro laakiin qays waa munaafiq kashka waa munaafiq waaba qaadanabo iyo dhalinyarada kale oo caanka u saaray okay muwadiyariisi munaafiqad miya dayax iyo muwadiyariisi ma isku keeni karo dayax iyo xasan yare ma isku keeni karo dayax iyo goodgeesi ma isku keeni karo what المواد البلوغي هبل بلوغي ninka akoonkiisa miyaad haysan aniga hadda akoonkiisa 30 ciyaalan baloogay sababtoo ma rabin aan daawado nacabiga maaha haddaad qofka u socotid macnaheedu maaha inaad narration keento xinif yar u baloogay hebel buu baloogay hadduu doono comment ku dhan baloogay qof comment ku caayo baloogaya ugu xumeyd u bahdishay waxay tiri muusan ibaloog garaynin bay tiri okay video adiga qays ma taqaanaa ka sheekaynaysaa in live oo aniga muxuu ahaa yar aan la sheekaysanay oo si caadi ah mana caynayna aan dhahay hadduu anshax soo dhaweyn waayo sheeqaalnimada waan ka saaray bas aan dhahay wax weyn mi had macayba yoo looqa whatsapp-ka igu soo diray macnaha aniga dayax waan la dagaalamay waan caayay waan ka dhaansaday waa run munaafiq ma yihi nin caad u soo bareeray baan ahay isaga marka dadka uu baloogareynayo waa dadka luuqa ka xanta tiiba hadda cadeynaysa cod adigu leedahay yaa la daaray baa leedahay adiga waa isbireynaya general arka waa siduu sheegay xiniyaha looga foqo ninka habaashaalo aniga halka mar idin kusoo gabagabeynaa halka kugu soo gabagabeynaa waxay tahay king of city waa qadarkeeyo inta soo artana waa fanaaniin Soomaaliyeed waa nabi salaama sababta aad Cristiano Ronaldo tabariisa baloog isku hayaan waa good marka dayax waa good tabariisa isla salaaman soo ninkan imaamadiisa aan waa tuure marra tuure ma fahad warkan intaas waa nin dhalinyaro ah waa nin fanaana 2015kii mas 14kii uu fanka soo galay he is still shining waa shidan yahay okay dayax hurdu ka soo kaca Don Carlo baloog ku qabara Don Carlo soo fariisanaa haye waa kaasa shalay laba qof cabe ilaa hadda reaction laga bixin meel socota arka إيري نحن تعبان والله نحن تعبان إيري ولي بلوك صارتي ويا ماركتي ورنيكا وات انت والله نيكا ورست ما سعتا halkaas markay ay joogto cunuga hal quraan saaro Carlo xariifta qeeso oo walaalka ah oo saaxiibka ah oo ciyaar xamar asna laafka markaa ka digo balogan ku saarahay saaxiib iyo Amir qayr bari abarta asaa ra'iis balansiga kashka iyo dayax horta waa soo dhaweynayaa kashka iyo dayax inay isbalansadaan waa laba dhalinyaro isleeg marka laga yimaado fanaan iyo bubble figure iyo waxa waa laba dhalinyaro isleeg waxaan rajaynayaa rag waa kala baxay raggaas inay kala bixi rabaan laakiin halka maxaa ka dhacay nin baa soo dhex tuuray oo ninka aad baa loo yasaa waa garaway sababta ninka loo yaso lama baloogo
looma hanjabo looma jawaabo lama caayo meel walbana ka muuqo waa lagu mulad beelaa nin la dhaho xaaskii cali saki oo waxaan arkay intuu live soo jeexday wuxuu yiri aniga xamar jooga cari la dagaalan haddaan ku caayaya waa ku dilayaa la war laba nin baa isaystay maxaa ku dhex geliyey adiga meesha ku haysta waxay laguma jawaabo waa lagu yasaa xaaskii cali saki baa tahay Soomaali dhexdeed cid ka dhex aragta ma jirto dadkii xitaa asxaabtaada ahaa ee family hoose ku xigay baad ceebaysay maxaa laba nin baa isaystay oo magaaladaas wada joogay isku dhacay live soo gali kartaa inta live soo gasho oranaysa waan dagaalamayaa aniga cari balanso aniga cari dil adiga haddii lagu dilay haddii aan lagu dilin maxaa kugu dhex jira saameyn ma lihid laguma yaqaano waad mid kale meel walba lagama muuqdo dee war ninkaasi waxaan ku iri wuxuu la dareeyahay waa garan lahay ciduu la dareeyahay waa garan lahay dayaxu reerkiisa ma caayo uma soo jawaabo waa seedigiis weeye waxba kama haysto meesha ninkani ka cararaya ka gubanaya waxa geeba aniga way garan waayo ila qofka meel ku gubta hadda kashka wuxuu leeyahay dayax wax isku qabanay at least haye laba nin weeye hays dagaalama ay sorda kan bilaa la dhaho waxba isku hayaan oo waa kii barigi dhawta isku qabtay showgi kan hadda la leeyahay keenan maxay xaaski cali saki maxay isku haystaan ninka muxuu ku haystaa meel walba saa u dhexordaya meel walba aniga cari la dagaalan aniga muxuu bal isku haystaan noo sheega bal hadda Soomaaliya dhageysto maxay isku haystaan ninka muxuu ku haystaa isaga muu caayin uma soo jawaabin waxba ma sheegin ma caayin ma aflagaadayn anaa sheegay wuxuu haysto hadaba beri dhawaad ma garanaysaa oo gabadha la dhaho Bonuura ay imanaysa xamar Muqdisho dayax wato shacab helay oo yiri ciyaal xamarow dameerka ficlaan baa lagu cadaaba oo arrinkii jaxjaxay isagoo ka argudanaya hadda koor in isaga saa lagu sameeyo hargeysa soo socda okay isaga marka maadaama cali saki aad u jecel yahay oo ay laafiyo cali saki qalbiga ka galay waa gabadha waa la masayr ila waxa weey waa transgender weey gabar ma waa transgender baa la dhahaa waa noocan ma taqaana shimeelka marka maadaama shimeel yahay ninkii uu iska muxbooday Soomaaliland iska jeclaaday Soomaaliland iska jeclaaday muxuu Soomaaliland gabar ka socota u diiday de ninka xal kuma haysto soo caayay lama arag qaar baa xidhan kaamiro u diiday de kaamirada haduu xitaa diiday aroos dubitaanka wax nin walba weeriyada maaha ninkani wuxuu la dareen yahay Bonuura gabadhi bariga hore la dareen yahay gabadhana muxuu dareen u leeyahay Soomaaliland ma soo jeeda Soomaaliland isaga maxaa weeye waa marwada koobaad ee Soomaaliland shimeel len qofkan qalbi jabka inta leeg maalmo u fiirsaday waliga kama hadlin maanta ay ugu darnaydo dayax iyo kashka isbalansaday waa laba nin way isleegihiin walwada laba noocaana reer Muqdisho weeye qabiil kuma xigo midna qabiil kuma xigo inna waa sheekhaal inna waa gaadsan xaa ku dhex dhigay oo leeda aniga waxa weeye isa jawaab aniga la hadlo ku dilaya aniga hadlo ku dilaya adduunka ilaahay dadka qaar waxa la yaabaysaa niyow mucjisada rabbaaniga wax jir inuu dareemo kaba soo tag maanta afkiisa heer waxa soo qabatay oo igu dhaho uurka ay leedahay nin kale u leedahay kaba soo tag weligay alqalad kuma dhin WhatsApp fiiri qof bilaash wax xun oo TikTok ka socdo oo challenge oo gabar walbo aalad timaada ay isticmaasho istaasiga soo dhigtay markuu waxa sawirada lagu hagaajisto baa waxa u qoray matqaana waa WhatsApp-na wuu leeyahay sawiradana waa lagu hagaajistaa qoraal yar baa u qoray istaasi baa soo saartay wuxuu isoo qoray hadda matqaana nolol iyo aragti ina nolol sameystid adiga waxa leedahay macnaa jecel iyo waxa uu ka hadlayo baa istaasiga soo saaray markaas wuxuu dhahay iqray maxaa waxa istaasiga soo saaray maana igu baahdilaysaa saa waxaan ku dhahay waxa waa challenge matqaba wax nolol iska isticmaalo maxaa kugu dhacaba ku dhahay ma bila aadan ma aha waa computer baa ku dhahay xitaa qof bilaadan naf ku jirta maxaa ka qaldasay ila dhaqmaysa wuxuu igu dhahay inta orad awalba waxa aragtay samee baashaal buu igu dhahay waa iska day waa ka aamis waxaan ku hayo waa ka qaadiyaa raali noqodaan computerka ka xumaatay hayo buu igu dhahay ku salaamiya suuqii soo galay TikTok wuxuu soo dhigtaa calaacal
TikTok wuxuu soo dhigtaa istaasiga idabsan kurbo maxay ceebenaysa hooyada Allah iga qaado baa ku dhahay istawa TikTok qoraalka ugu qora hadda waa ku soo sawiri karaa wuxuu ugu dhahay waxa ku qoro walaal macaan waa ku dhahay dufaan qof aan ku dulmin inaad dulmiso waa laga fiican yahay weligay kuma ogolaanin wax jir oo muruga inaad dareentid weligay kuma ogolaanin ina waxa dir maxay TikTok calaalka u soo dhiganis ma ogol ma rabi baa ku dhahay faca ina u jibtid aniga maalin waxba kuma dhiin maalin waxba kuma dhiin waxa iiga xanaaqdina waa bahalka xunka istaasiga soo saartay وانا كاره الجلينيا بقول جرواي محل دابالك مقعيسي تيب إيه بالدا كان تي إيه بالدا والي قانه تايغا waa u sheegay markaas waxa dhacday waxa ku dhahay isaa ayadoo sheekada ahayd oo yiraaday anu ku dulmi maayo ku salaamaya baa ka aamusay qolkiisoo furan baa imaaday waa marka imaaday mid abtigayo oo mareexaana baa gabdho badan baa caynayay oo commentiga u galgalayay markaas waxa ku dhahay gabar baa waxay soo qortay marka wiilka jabri is haysteen gabar baa waxay soo qortay jabri waa nin ma jeerteen waxa ku dhahay abaa asigu waa nin mareexaan ee labada nin oo ilma adeerta ha u kala goobsan baa ku dhahay waa labadaba waa ilma adeere so intu taleefka saada uga dafay wuxuu ugu dhahay ikhram anaga nacaynaysa sabaan ku dhahay war aniga ma jirtay waliga aftiga ku amaani jiray waliga adiga aanu ku aqoonin aanu ku shaqaysan jirin baa ma jirteen amaani jiray adoon ku aqoon baa ismaa maxamed amaani jiray waliga baan qabiilkaaga af u gafin waliga baan nacaayin sabaa idii kartaa marka uu imaad WhatsApp ku imaaday wuxuu ugu dhahay intaas ku soo afmeeriya saaxiibayaal bari xilligan oo kale muuqaalkeena xiga inta ka daawo doontiin waa sidaas nabadgelyo asjaan oo dilaa